waxaan u gudbayaa qodobka heshiiska Ethiopia sidaa la socotaan madaxweynaha labada gole ee baarlamaanka wuxuu hor keenay qaraarkaas waxaa la go'aamiyey inay Ethiopia ku soo xadgudubtay madax banaanidii gobonnimadii iyo wadajirkii dhulka Soomaaliyeed sidaas daraaddeed aan marna lala fadhiisanin miiska waa hadalka ilaa ay ka noqonayso arrintaas ayada ah madaxweynaha asagoona u soo noqonin labadii gole asagoona wax tixgelina siinin go'aankii labada gole soo saareen ayuu miiska wada hadalka la fadhiistay ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo aan ka noqonin MOU-gii waxaa la yidhi si loogu cayaaro caqligeenna iyo garaadka shacabka Soomaaliyeed waxaa la leeyahay wixii la isku hayay ee contentious issue ahaa xasaasiga ahaa qadiyadii xasaasiga ahaa in hore looga socdo lama sheegin qadiyadaha xasaasiga waxay yihiin ma MOU-giya ma ictiraafkii Somaliland Ethiopia rabtaa ma saldhiggii militariga doonaysaa maxay yihiin waxaas balse waxaa la yidhi dowladda Soomaaliya waa inay qirtaa nafurkii ay sameeyeen ciidankii Ethiopia waxay Ankara ka noqotay iyadoon is-afgaradkii laga noqonin iyagoo meel lagu sheegay aysan jirin wixii is-afgaradka ku yaalay iyadoo la aqoonsaday ciidankeeda inuu yahay ciidan nafur u sameeyey Soomaaliya waxaa su'aal leh madaxweynaha in badan uu diiday inuu miiska halka tago ilaa uu ka noqdo Abiy Ahmed iyo maamulkiisa ay ka noqdaan is-afgaradkii maxaa maanta riixay maxaa maanta geeyey waxaa geeyey waa iska caddahay waa cadaadiska gudaha ka haysta waa cadaadiska siyaasadeed ee gudaha ka haysta markii aad walaalaha inaad u tanaasusho aad diido markii aad istiraahdo dantaada guracan meel marso markii aad dadka dalka kula leh talada kula leh aad diiddo waxaad door bidaysaa inaad ajnabiga naf ka raadiso waa taariikh siyaasad Soomaaliya taalla oo la wada og yahay waxaa taas ka sii daran markuu dareenkaaga iyo damacaaga iyo dooqaada keliya ku hogaamiyo maxaa dhacaya duruufaha isla bedelaysaa xaaladda markaas taagan yaad ku xukun tahay cadaadiska markaas ku haysto ayaa kuu daran marka waxaa tahay nin dooqiisa la tashaday ajnabiguna dadka noocaasa sidoodaba way ka adag yihiin sida muuqata heshiiska muuqata waxaan isku hadlaynay Turkiya waxaan nidhi Turkiya ayaa la shaqaynaysa guddiyada farsamo Turkiya ayaa wixii la isku khilaafa na soo dhexgelaysa Turkiya ayaa damaanad qaadaysa inuu Abiy Ahmed heshiiskii ama MOU-gii uusan fulinin ukumahaynay dhammaan waxaan ag dhignay dowladda Turkiga waa laga yaabaa inay dowladda Turkiya Soomaaliya garab istaagtay u heliso inay danteeda ka raacatana waa mid dhici karta waxaa kaloo meesha ka baxay waxaad ogtihiin madaxweynaha markay isku dhaceen Ethiopia heshiisyo kale u galay dowlado kale ka raadiyay isbahaysi ciidamo kale iyo hub kale doontay dowlado kale soo kiciyay maanta xagee lagu sheegaa dowladahaas maxaa marka madaxweynuhu u ekaaday qof aan lagu kalsoonaa karin isbebedelaya lana saadaali karin qof noocaasa dalka uu hogaamiyana cid wax ku darsanaysaa ma jirto sababtoo laguma saadaali karo xataa Etoobiyada la leeyahay waa lala soo heshiiyey mid ku saadaali karta maaha mid ku aamineysana maaha wax allaali iyo wixii dibandaabiyo ay kugu haysay halkeedii unbay ka sii wadaysaa